weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa saaki aroortii hore lagu qaaday xarun uu gaalkacyo ka degnaa Sheekh Cabdulle Cali Cilmi Yaro oo kamid ahaa wadaadada sida weyn lagu yaqaanay gobolka Mudug isla markaana ku caanbaxay soo saaridda dhalinyaro qaada digri lagu laray muusig qaraxa kadib ayaa la sheegay in gaari taagnaa goobta ay ka soo deganay afar qof oo huweysnaa kuwaas oo bilaabay toogasho ay ku diliyeen raggii xirtu ah Sheekh Cabdulle iyadoona dad goobjoogayaal ay xaqiijiyeen raggii galay xarunta ay markii hore ay toogteen Sheekh Cabdulle Cali Cilmi oo xilliga weerarku bilaawanayay ka soo baxay qol uu degnaa iyadoona intaas kadib raggii huweysnaa ay u gudbeen qayb kale oo shiiqa uu lahaa halkaas oo ay ka bilaabeen toogasho kale waxaana goobta ay ku dileen ilaa 3 kamid ah haweenkii ku sugnaa goobtaasi intaas kadib ayaa waxa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa danab iyo kuwa ka socda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo dagaal la galay raggii weerar ku soo qaaday xaruntii uu degnaa Sheekh Cabdulle oo gudaha ugu jiray iyadoona dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada iyo raggii gudaha ugu jiray xarunta uu qaatay muddo 1 saacadood kadib markii saraakiisha ay sheegeen in la toogtay 3 kamid ah raggii gudaha ku jiray isla markaana ay gacanta ay ku dhigeen mid kale in ka badan 18 qofood oo ay ku jiraan 3 kamid ah raggii weerar ku soo qaaday xarunta ayaa ku geeriyooday weerarkii maanta ka dhacay xarunta uu degnaa Sheekh Cabdulle iyadoona ay ku dhaawacmeen tir inta ka badan Cabdicasiis Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee Galmudug ayaa sheegay mid kamid ah raggii weerar ku soo qaaday xarunta ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada waxa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen talada sharwadayaasha markay ahayd saacadu 12kii subaxnimo hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda inta aragno aan xaqiijinay waa 4 in ka badanna in jirto waa macquul laakiin wali meelihii dagaalku aan kula galnay maan ka raadinaynaa aad iyo aad baan maartay uga xunnahay in dad shacab ah degan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo qabtaan hadii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ciidanka magaalada jooga iyo booliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad wanaagsan hal nin oo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu haynaa hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa noli wasaaraha shacabka ka tintan oo doctor koob sax ma hayno laakiin maybe la 9 qof 10 qof oo nolo sheegaya sidoo kale nin shacab ayaa ku geeriyooday qarax ku xirnaa gaari nooha oo ninka ku geeriyooday uu ka watay halka uu weerarku ka bilowday iyadoona gaariga uu kula qarxay gudaha magaalada mana jiraan khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi guud ahaan waxaa burburay xarunta shiiqa iyo guriyada ka agdhawaa liban cajiib